ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورمضان ونكسن يسرنا العصب الله ينقى قبله. انتي نقى لمتين الله ونحرست، انتي نقى بكتنا الله عافيه. dadka muslimiintii meel ay joogaan ba waa fursad ilaahay uu nasiiyay mar kale oo sanadkana oo walaalaheenii dhintay aanay helin ee maalin walba aynu arkayna tacsida hebel la tacsiyeynayo heblaayo la tacsiyeynayo aad bay u badatay 10 bay noogu filantay arrintaas. camalkaynu sahay qaadanaynana waa kan aynu u fadhino, hadduu yahay cilmiga aynu isu sheegayno iyo hadduu yahay cibaadadan kale aynu gudanaynaba. kelmadeenu waqtigan duhurkii 15 mirir bay ahaan doontaa insha Allah. isbuuciina way qaybsanaan doontaa. waqtiyada qaarkood waxaynu ka dhigi doonaa wiigan hore axkaamta bisha Ramadaan ilaa 70 mas'alo oo la xidhiidha soomka baynu wiigan hore ku soo bandhig insha Allah, si qofku cilmi ugu yeesho oo cibaadadu haddaana cilmi lahayn macno ma yeelato ama way ka xumaataa qofka. wiiga ku xiga insha Allah waxaynu qaadan doonaa muxaadaraad kala duwan iyo soomka iyo salaada iyo xajka iyo qaybaha arkaanu islaamka iyo iimaanka. saadaradeed waxaynu ku dheeraan maynaa sahay cilmi ayuu baynu ka dhigi doonaa oo kolba waxaynu islaano fataawihina way dhex socon doonaan oo wiiga barkii qayb baa noqon doona inaynu wala wixii dadku ay tabanayaan aynu wax ka jawaabno. ugu horeyn waxa aynu ogsoonahay adduunka waxaynu u joognaa ilaahay noo abuuray inaynu ilaahay caabudno subxaanahu wa tacaala. qofka ilaahay caabudaya wuxuu garanayaa macnaha looga jeedo nolosha iyo in layna imtixaanayo. qofka taa garan waayana sir alxayaa, sirtii nolosha muu fahmin. ilaahay baa yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. cibaadooyinka haddaba ugu qiimaha badan ee ugu cajiibsan waxaa ka mid ah allah inaga aqbala cibaadadan imika aynu fadhino ee bisha Ramadaan iyo soomkeeda waa min acdam alcibaadaat. cabsida allana waa masdarka iyo meesha laga qaato. qofkuna tayo iyo qiimo wuxuu yeeshaa marka ilaahay ka cabsanaya subxaanahu wa tacaala. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. lacala waxay tilmaamaysaa waa wax laynaga rajaynayo oo lagu sababeeyey soomkeena. soomka sidoo kale ilaahay wuu ina jeclaysiiyey, raqabanaa fiih, wuu inagu abaabulay oo wuu ina jeclaysiiyey. markaasaa wuxuu ilaahay leeyahay wa an tasuumuu khayrun lakum, inaad soontaan iyo inaad iska daysaan wax la simi kara maahee inaad soontaan baa idiin khayr badan buu ilaahay leeyahay. cidda inala hadlaysaa waa ayo? waa ilaahay ina abuuray subxaanahu wa tacaala. isagaa danteena garanayo inoo dooraya. wakadalik arshadanaa ilaa shukrihi calaa haadihi alfariida. wuxuu sidoo kale inagu abaabulay inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqno nicmadaa uu ina waafajiyey. walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun. ilaahay baa idin waafajiyey nicmadaas iyo hanuunka ah, waxaa la doonaya inaad ku mahadnaqdaan. sidoo kale waxababahu ilayna wakhafafa cana lianlaa yahqula cala annufuus. wuxuu inoo tilmaamay cibaadadan haynagu waajibiyo tijaabaha ahaato balse inay inoo fududahay oonay culays lahayn. markaasaa ilaahay wuxuu uhi ayaaman macduudaat, haddaba maalmo tirsan. waxba ha ka warwareegine ruuxdiina iyo jidhkiinaba dee caafimaad bay u tahay, waa maalmo tirsan baa ilaahay uhi haa maanta way bilaabantay. waxaad arki doontaa ayaamo yar kadib adigoo shaqaynaya dhaadhacday oo 15kii hore la dhaafay. sidaa u soconaysaa buu cimrigeennuna u soconayaa. markaa waxaa ilaahay uu ku fududaynayaa markuu waa tiro yar, waa tiro yaroon badnayn marka loo eego 12kii bilooda kale eed 11 lagu fasaxay
bishana lagu yiri bal hada nafta yara carbi waxa sidoo kale rabbi subhanahu wa ta'ala uu inoo tilmaamay waxyaabaha inoo fududeynaya waxa kamid ah ama cibaadadan aan laga caban kareynin qofka ay ku adkaato waaba laga fududeeyay cibaadadu laha mashaqo caadiya cibaadadu waxay leedahay xoogaa mashaqo iska caadi oo la kari karo oo deynta adoonnimadaada lagu tijaabinayaa mashqac yaro layna yara gelinayo way bal inaad ogosho inaad ilaahay adoon u noqoto iyo in kale cunadaada iyo cabidaada iyo wixii aad jeceshahay oo dhan inaad ilaahay daraaday u deynaysiyo inay naftu ku adoonsanayso marka haddii mashaqadaasi ay qayr caadi noqoto oo awoodeennii ay dhaafto waxa la wixii cibaado aba taysiir baa yimaada oo qawaacidka shariicaddeena waxa kamid ah qaacido oranaysa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir mashaqada qofka ku timaada fudayd bay keentaa soomkii baad kari weyday mashaqa kugu timi qofkii ku timi waa laga fududeeyay cibaadadii salaadida ayaa ku cuslaatay waa laga fududeeyo sidaad u kartabaalay isku wada dar cibaadooyinka oo dhan waa cibaadada dadka muslimiinta ilaahay uu ku waajibiyay nooca gaarka ay leedahay weeye haddaba cibaadada waxa soo dhami uu ku jiro ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala inta soo siyoodi inoogu abaabulay ma mudna ila fududaysto ilaahayna in lagu gacan sayro ma mudna sidaa daraaddeed si ay cibaadadaasi mug iyo miisaan u yeelato cibaado macaan oo ilaahay uu ka raaliyo qiyaamaha aynu ku faraxna ay u yeelato aqooni waa muhiim camalku cilmi buu baahay waynaga aragno camalka soo adduunyada la qabanayo qofka loo diray waxa la yahay muxuu cilmi u leeyahay laba arrimood baa loo eegaa muxuu khibrad u leeyahay iyo muxuu cilmi u leeyahay cilmigiisu xataa kii nadariga hadduu yahay ee tadbiiqiga aanu wali gaarin waxa la yiraahdaa qofkan aqoontii uu leeyahay laakiin ma la soo qabsaday waxa la doonayaa inuu idqaan yimaado oo shaqadii camalkii la hagaajiyo camalkii dunyawiga camalkii diiniga ahaana maxaad u malaysay ilaahay loogu dhawaanayo subxaanahu wa ta'ala marka masalada koobaad aynu sheegi lahayn waxa weeye soom maxaa la yiraahdaa soomku waxa weeyaan al-imsaaku 'an al-muftiraati fi nahaari ramadaan bi niyyati siyam sharci ahaan marka la eego luqada kama hadlayno oo luqadu waxa weeye qofkii oo iska daaya cunada amaba iska daaya wax u sameyn lahaa Maryama bint Imraan markii lagu buuqay ee dadka qaarkoodna ay qadfeen waxay leedahay inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyan anugu maanta soom baan nadar ku galay soomkaasina waa hadalkan ka aamusaya marka hadalkii oo laga aamusaa soom noqotay laakiin xagga sharciga waxa weeye inuu qofku cunadii iyo cabidii wixii jabinaya oo dhan wacan wixii jabinaya soomka inuu ka joogsado iska daayo taa waxa isagoo niyoonaya soomkaasi faral iyo sunnaka uu yahay taa waxa laga saaraya marka soomam kale oo ummadaha kale ay soomaan casrigan iyo cusurtii horeba waxay noogday soom dadka qaar oo soomaan ujeedooyin kala duwan ay u soomaan qaar baa u sooma liyaaqatul badan in jirka lagu khafiifiyo oo ilaan jirku markuu gaajoodo shuxuumtii iyo xaydhii buu dib u cunaa oo qaybtii qofka uu istoor garaysnayd jirkiisa iyo baruurtii buu dib u cunaa qofkii markaa wuxuu helayaa inuu fududaado xigmadaha soomkay ka mid dad baa jirka aan ku fududayno u sooma casrigan ay joogno qaar kala ka sooma cunada qayb kamida sida hilibka kale oo waynu garanaynaa jaarkeenaba kamida almuhim kuwa looma jeedo waxa soo dhan si uu uga baxo soomkii waa soomka wax kasta oo jabinayo inuu sheegi doono la iska daynayo iyadoo ilaahay daraadii loo niyado subxaanahu wa ta'ala taas waa masalada koobaad iyo in qayaxaad iyo tilmaan gaar ah lagu sameeyo soomkeena masalada labaad waxa weeye xukm hadhihi al-fariida soomkan isaga xukumkiisa saynu marar badan soo tilmaanay soomku waa laba qaybood mid sunna iyo mid farala ka faralka waa saddex qaybood soomka bisha ramadaan iyo soomka nadarka oo qofkii midal lillahi calayya ana suma bi 10 ayaam wuxuu leeyahay wuxuu ugu leeyahay 10 maalmood soomo faral buu ku yahay iyo soomul kafaaraat qofku hadduu wax dilo hadduu xaaskiisa bisha ramadaan u tago waa soomkii kafaara gudka labada bilood ee raacsan marka soomkaas waa faral inta wixii ka soo harayna waa soom sunna kalimka waxa weeye muslimiinta oo dhan waxay isku waafaqsan iyagoo daliilada soo qaadanaya quraanka iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam in cibaadadani farad tahay ayada aynu soo akhrinay baa sidaa sheegaysa ilaahay baa wuxuu leeyahay yaa ayuha alladina aamanu kutiba calaykum kutiba fi cilmi usul marka la eego waa erayada loo isticmaalo shayga la sheegaya inuu waajib yahay فرض ولا مت أوجب عليكم
markaa waxaa la idinku waajibiyey war ka soo hadhayba ma jiraba nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay bisha ramadaan soomkeedu inuu ka mid yahay waxyaabaha tiirarka islaamkeennu uu ku taagan yahay buniya alislaamu calaa khams islaamkii waxaa lagu dhisay 5 waxaa ka mid ahaa soomu ramadaan inta kale waa garanayna bisha ramadaan iyo soomkeeda sidaa daraaddeed hadduu qofku isagoo kari karaya bisha ramadaan soomkeeda iska daayo qad irtakaba kabiiratan min alkabaa'ir wuxuu ku dhacay dembi weyn oo dembiyada khatarta badan ka mid ah la arkaan islaamkiibu mid jaray tiirarkii islaamkii ku taagnaa cuqubana wuu leeyahay cuqubo weyn ayuu yeelanayaa waxyaabaha muujinaya cuqubadaasi aada uga digaya soom la-aanta waxaa ka mid a xadiid nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam oo saxiixu tarkiib watarhiib ku sugan rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi habeen baa la yidhi ilmiyo malaa'igtu ay kaxeeyeen waxay mariyeen jawle wareeg dheer baa la soo mariyey jannada naarta dadka jannaysan dadka cadaaban kuwii lay tusay waxaa ka mid ahaa waxaan maqlay buuhi naarta oo qayla ka baxayso waxaas muxuu ahaa waxaa la yidhi waa aswaatu ahli naar dadka naarta ku jira qayladoodii weeye waxaa ka mida baa laygu yidhi qolyo mee waxaan arkay buu yidhi waxaan arkay qolyo boqonta intoo laga xidhay la soo deldelay oo afkana la dildilaaciyey dhiigna ka daayo kuwaasi maxay ahaayeen waa kuwii bisha ramadaan oon gaadhin wakhtigii la afurayey iska cunayay baa nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka sinaysta iyo kuwa ribada cuna iyo qolo walba gaar baa wax loogu sheegay laakiin kuwa soomka soomi waayey bisha ramadaan sidaasaa iyagana loogu ciqaabayaa cadaabalqabrigaana ay u marayaan waxaa xaafidu dahabi raximah ullah uu leeyahay markuu masaladaa ka hadlayo cinda almuslimiina muqarar calaa ana man taraka sowma ramadaana min gayri cudrin annahu sharu min azani wa mudmin lilkhamr muslimiinta agtooda waxaa sugan buu leeyahay qofkaa khamriga cabaya iyo kaas sinaysanaya inuu ka daran yahay qofka soomi waayey tusaale xunna wuu noqday munaafiqnimona waa la yimi wa kaanuu yadunuuna bihi zandaqa walinxilaal culimada qaarkoodna waxaabay odhan jireen qofkaasi waa nooc munaafiqnimoa baa ku jirta sidoo kale hadduu xaaraanta xalaashado oo idhaahdo dadkani way iska daalayaano way iska gaajoonayaane bishan in wax la cunaa waa xalaal dee aayaadkan uu beeniyo axaadiidtan uu beeniyo diintii islaamka wuu ka baxay saa daraaddeed waa ku ridoobayaa diintu kaga durkayaa soomku walaalayaal wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo aada u fadli badan oo wakhtiyada qaarkood aynu ku qaadan doono duruusta kale oo intuba ina jeclaysiinaya cibaadadan inaynu u heelanaano oo aynaan fudaysanin waxaa ka mid a xadiidka sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidalqudsiga uu ilaahay inooga wariyo tilmaamaya rabbi cibaadooyinka kale oo dhan waxaa le addoonka soomka anaa leh wa ana ajzii bihi maxay sheegaysa cibaadooyinka o dhan ilaahay baa wada leh laakiin khaas yeeliddaa ilaahay si gaara u khaas yeela waxay sheegaysaa in ajrigiisu uu dheeraad leeyahay oo cibaadadani cibaadooyinka kale ay dheeraad ka leedahay waxaa ka mid a xadiidkii isaguna tilmaamaya ana sowma laa cidla lahu nasaa-i uu warinaya saxiixaha ninkii nebiga weydiiyey maxaad igula talin lahay inaan ku dugleeyo aan ku dhago cibaadooyinka calayka bisawmi fainahu laa mila lah aw laa cidla lah soomuun ogow wax la mid ahoo cibaado ah ma hayo ilaahay inoo sakhiriyo waa inagan ku dhex jirna waxaa ka mid a fadaa'ilkiisa waa soo gaagaabinaynaaye xadiidkii tilmaamaya ana dacwata saa'imi laa turad qofka sooman ducadiisa inaan la aqbalayn waa fursad mudan aynanu ka faa'iidaysano si aad wardiga u badinaysa iyo qur-aan akhriska xoogaa markaad joogtaba wixii kuugu daran ka ducayso waxaa ka mid a cibaadooyin fadliga soomka xadiidkii saxiixa ay sheegaya inuu qofku laba farxadood leeyahay adduunyadana farxayo aakhirana farxayo noloshuna waxay macaan ku yeelataaba inuu qofku farxaddaa helo oo sacaadadu aanay ka durkin aanay ka maqnaanin waxaa ka mid a inuu shafaaco qaadayo maalinta shafaacada aada loogu baahan yahay soomku oo soomka iyo qur-aanku way shafaaco qaadayaan buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam intaasuu 15 daqiiqa ku dhammaaday waynu sii wadi doonaa insha allahu halkaasay maanta inoogu joogtaa soomkiiyo salaada iyo sadaqada iyo dikriga iyo cibaadada iyo qur-aankaba allah inaga aqbalo waxaynu tabayniyo cudurkana allah inaga dulqaado
صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك